dhalinyarada gabdhaha bulshada kala duwan ee meeshaan isugu timid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sharaf bay tahay maanta inaad igala soo qayb gashaan xafladan aan ku shaacinayo inaan u taagnahay xubin baarlamaanka golaha shacabka dowladda federaalk ee Soomaaliya. xubintaas oo deegaan doorashadeedu uu gobolka Mudug yahay. Ustaad Cabdiweli baa ka warramay magacayga iyo CV-gayga ku laaban maayo. mahadnaqa kadib waxaan rabaa kelmadeydu inay laba qodob ahaato sida boorka ku qoran matalaad iyo maqaam dowladnimo. xubinta baarlamaanka intaas ka shaqeysa waxa la yaab leh inaad la yaabtaan baa laga yaabaa muxuu iska soo lugooyay halkaas dhibka badan ee qaxarka miiraan ee xamar iyo dadku runtii waxaa jira qof walba marka uu meel galo wuxuu samaystaa wax la yiraahdo comfort zone, meel uu isagu ku yaraa nafiso oo inuu ka bedesho iyo ay dhib badan tahay. marka runtii waxaan is leeyahay laba qodob, sababuhu way badan yihiin laakiin laba sababood ayaan ku soo koobi karaa oo igu dhiirigeliyay inaan halkaan soo istaago oo aan dalbado inaan maxaan ku radaa isu sharaxo kursigaas. tan ugu horeysa waxa weeyaan kursigan dadka lagu matalo iyo deegaanka lagu matalo muddooyinkii u dambeeyey mayna helin dad karti leh oo garashadeed leh oo shaqada iyo matalaadda ay u baahan tahay, deegaankani u baahan yahay, ama dowladda federaalka Soomaaliya u baahan tahay, ama gobollada Puntland looga baahan yahay buuxin kara. kursigan siyaasadaha dowladdii rayidka ahayd taariikhdii hore Soomaaliya rag culculus baa ku fadhin jiray oo magacyadooda meel walba laga yaqaan. intii ka dambeysay oo burburkii la carto waxaan oran karaa meeshaasi way dalooshay, way bannaanayd. haddaan is leeyahay dad qaamaad ah oo waaweyn oo aniga aan ka heebaysan karaa maanta meesha ku aadan ma soo doonteen. dayacaas ay muuqday. midda labaad waa 10 sano u dambeysay oon dowladnimada Soomaaliya si uun ugu dhex jiray, ama aan ka shaqeeyo ama aan la taliyayaal u noqdo hay-adaha qaar. xogogaalnimadayda iyo aqoonta aan u leeyahayna way igu dhiirigelisay warbal meeshaas ka wardoon. ammaanada in la doonto Dr. Aadan Maxamed Cigaal jazaahullah khayr ma aha wax sahlan. dadka iyaga ku dhiirada marka inay doontaan waxay soo daliishadaan nabi Yuusuf alayhi salaam, ijcalnii calaa khazaa'ini al-ardi innii xafiidun caliim, ayuu yidhi markii xabsiga laga soo daayay. marka culimmadu waxay dhahaan haddaad wax isku tuhmiso aayaddaas baa naloo soo sheegaa inta yada rabta inay isdheerayso. ilaahay xaq hana waafajiyo, sawaabkana hanagu aadiyo. matalaaddu runtii waddankeenna dowlad la'aan iyo burbur ayaa ku dhacay. shacabkeenna Soomaaliyeed wuu kala aamin baxay. qarannimadeennii waxay u kala qaybsantay reero iyo qabiilo. waxaynu hadda ka shaqaynaynaa oo loo taagan yahay sidii la isugu soo celin lahaa kalsoonidii. dowladnimaduna waa kalsooni. culimada siyaasadda waxay dhahaan dowladnimadu waxay ku dhisan tahay social contract, wax la yiraahdo heshiis bulsho. heshiis haddaad maqashana kalsooni baa jirta. labada qof oo heshiisa ay kalsooni ayaa marka hore dhex marta. meesha dhibaatadu inaga gaadhay waa heshiis la'aan. taasi marka waxay keentay dadkeennu inay is-aamini waayaan. mar walba oo siyaasi khariban uu siyaasadda Soomaaliya yimaadana kala aamin buuxu inuu sii siyaado. marka matalaaddu waxay ka imaanaysaa qofka loo dirayo siyaasadda valueska iyo qiimaha iyo akhlaaqiyaadka iyo qiyamka uu leeyahay, halkaasay ka imaanaysaa. ma noqon karaa qof dhisi kara kalsooni, deegaankiisa ka dhisi kara isaga iyo bulshada uu matalo, dadka kale ee Soomaaliyeedna gaarsiin kara fariinta wada noolaanshaha iyo kalsoonida. sida runtii baahiyaha badan oo wada ogtihiin oo jira waxaa ka mid ah xubinta baarlamaanka marka la magacaabo dadka deegaanka ka soo jeeda inay aad ugu fakaraan
inuu qofkaasi gacan qabto oo qof walba uu si gaar u gacan qabto. taasi waxay ka dhuminaysaa qofka hadafkii iyo ujeeddadii matalaadda qaranka iyo deegaanka. anigu haddaan meeshaa tago qof walba oo reerka dadka deegaankaana baahidiisa ma dabooli karo. gabadh walba ama wiil walba ama maamo walba xanuunsan caafimaad lama raadin karo. laakiin waxaan ka shaqayn karaa cusbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo in uu taabagalo uu shaqeeyaa dad baa intaa u taagan inaan xoojiyo oo wixii aan awoodi karo inaan halkaas suu geeyo, inaan ka maaranno dadkeenna in loo qaado gobollo kale ama dibaddaba in loo qaado. dhakhaatiirtii way fadhiyaan, adeegga caafimaadku waa waxa u sahlan oo laga shaqayn karo, laakiin wuxuu waayay runtii matalaad oo cusbitaalkaasi matalaad ayuu waayay. anigu waxaa laga yaabaa haddii halkaa ilaahay ii sahlo inaanan arday walba shahaado dugsi sare wata aanan scholarship ama waxa la yidhaahdo deeq waxbarasho siin karin, laakiin waxaan ku dadaalayaa inaan jaamacadaha maxalliga ah aan wixii aan tari karo oon u qareemi karo aan u qareemo. matalaaddu halkaas ayay ka imaanaysaa. deegaanadeennu waa baaxad weyn yihiin, waanan biyo la'aan. taas inaan ka shaqayno oo aan dadka iyo baahiyahooda u kurgalno oo aan xogta dhabta ah ee dalka iyo dadka ay ku sugan yihiin aanu hay-adaha qorshaynta ee qaranka aanu geyno. halkaasaan ku dadaaliya haddii rabino matalaadda halkaasaan saasaan u arkaa inay tahay runtii. waxaa dhici karta haddaad ka filanaysaan xildhibaanka xagga marka loo diro inuu si gaargaara idiin qaabilo, inaad maxaanku idhaahdaa aad dhici karta inaad maaragtay uu la mid noqonaya xildhibaankaasi qof guri ku jira, guri dhakada ka duleela, roobna u da'ayo, aadna rabtaan inuu gurigaani qalalnaado. gurigan ma qalalnaanayo, biyuhuna kama dhammaanayaan ilaa laga shaqeeyo meesha duleesha in la awdo. si kasta oo xildhibaanku u dadaalo, haddii uu maalmaha yowmiyaadka hadduu qofku ku mashquulayo waxaa dayacmaysa dantii guud ee qaranka. qodobkaas matalaadda waxaan rajaynayaa inaan intaa ooga tago. maqaam dowladnimo marka aan leenahay waxa weeye dalkii Soomaaliya la oran jiray, jamhuuriyadda Soomaaliya la oran jiray runtii dhaawac weyn baa gaaray, wayna burburtay. 60kii markaynu helaynay madax bannaanida dadka Soomaaliyeed aad bay u niyad fiicnaayeen. waxay moodayeen saan cadaaluhu hadduu tago inay dhargayaan. waa kay lahaayeen hadday curatoy mataanaysee aan maalna heshayna maandeeq. qof walba wuxuu niyadda gashtay in uu maanta biyo sacbadaada looga dhargaayo dowladnimada iyo qarannimada inuu ka dhargayo. wuxuu qof walba islahaa maandeeq saan cadaalaha iyo gumaysiga u irmaanayd, marka maanta idinka idin godlatay. oday waxaa laga sheegay magaalooyinka Soomaaliyeed mid ka mid ah sayladda neef adhiga ku soo xiray baa markuu gumaysigu baxay kadib waxaa lagu yidhi canshuur baa lagaa rabaa. marka wuxuu ku yidhi canshuurtu maxay tahay soo gumaystii ma tegin. marka waxaa halkaas ka cad in fahanka dowladnimada dadka Soomaaliyeed ay ka haystaan ay tahay keli ah inay dowladdu wax bixiso, laakiin dadka inay wax ka qaado inay falsafadaasi inaga maqan tahay ayaa caddayd. runtii markii xornimada la helay, Qaasim oo ahaa nin abwaana waxa weeye isma doorin gaalkan dirniya daarta kii galay, haddana laguma diirsade qalbigu waa dirkii karale buu leeyahayo. macnaha nimankii bedelay gumaysiga ayuu dhaliilayaa 64 oo wuxuu arkay meeshii loo socdayba iyo wixii la filayayba inaysan Soomaalidu ayna u socon. taariikhda marka waxay ina baraysaa in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in aad loo fahansiiyo dowladnimada iyo maqaamka dowladnimada inay u baahan tahay naf iyo maal in lagu bixiyo dowladda, in laga saxo dadka shuruucda in laga saxo. dalkeenna shuruucdiisa runtii dowladda shay ka shaqeeya. baarlamaan waxa ugu badan oo ka shaqeynayo waa shuruucdaasna waxa weeyaan waa xeerarka lagu hago arrimaha bulshada ee dalka. marka ummad xeerka ugu sahlan ee xeerka traafikada ah baabuurta isku dhacda
ama xeerka immigrationka oo yaa Soomaali oo baasaboorka qaadanaya aan samaysan karin oo la rabo in looga sameeyo dawladda shisheeye ay soo fargashadaan nasiib darro weyn baa halka naga haysata waxyaabaha baarlamaanka xubinta baarlamaanka ee tayada looga baahan yahay waxa kamid ah in uu xeerarkaas ka shaqeeyo kartideed iyo aqoonteed iyo fahamkeed inuu leeyahay lama rabo nin tooxsi lama rabo jahli toobiyo arrimaha siyaasadda lama aado aqoon baa la aadaa waxay ku fiican tahayna male shirkadda telefoonadka ina siisaa marka ay Soomaaliya telefoonadka keenisay yaa raganimo leh gobolka midug wada rag baa laga heliyaa wada xiniyooda baarqabiya laga heliyaa marka baarqabiya tiro badan meena xareysan shirkaddu yaa aqoonteed la weertay shahaado wata intii shahaadada lahayd baa meeshaas shahaado u gudbisatay laakiin nasiib darrada naga haysata siyaasadda waxay tahay qof walba oo hadli kara oo laba kelmadood oran kara isagoo aan la tijaabin oo waxa uu maxaan ku raahday baa halkaas loo diraya waxa muhiim ah oo kaliya reerka inuu ka dhashay maadaama leeyahay wixii waa 4.5 marka waxa la rabaa in nabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen basira la rabaa yaqiin baa la rabaa iyo aqoon in dadka wax loogu dirsado qofku iska soco hamag ah raganimo iyo reer hebel baa waxay u maleeyeen ba qaarkood inay reer hebel dagaal ugu jiraan oo baarlamaanka kaga qayb galiyaan yaan laga badin oo Soomaalida taariikhdii hore waxa laga hayaa niman baa waxa lagu yiri war baarlamaanka hebel oo reer hebel ka soo jeedo oo in ishaynaa ku jireen wax allaaliya wixii uu gacanta u taago idinkuna diida hadda waxa timid baa la yiri in la dhaho ninkaas diidmada halkaas ninkaas kala daawanaya marka waxa la yiri degmadii uu ka soo jeeday baa laami loo sameeynaya iyo waxbarasho iyo ceelal ninkii la raaciyay oo la yiri meeshuu gacanta u taago haye dhaho adigu ma yadhe baa wuxuu u taagay gacanta in meesha iskuule iyo la geeyo suu isna iyaan la geenin buu yiri waana degmadiisii haddii marka bahasho ay naga noqoto reer hebel baan ahay oo raganiman meesha ku aadaya xaqiiqatan saas inooga ekaanaysa marka waxa la rabaa qof mas'uuliyad wadaneed iyo ammaana qof leh in la diro anigu iskuma tuhumayo oo hortiina kama lihi kaasaan ah laakiin haddana saas way tahay tabardaridayda maan la soo istaagayaa ilaahayna waxaan subxaanahu wa tacaala aan ka baryayaa inuu wixii khayrku ku jiro i waafajiyo hadday halkaas shar iigu jirto ilaahay inuusan waafajin baan rajaynaya maxaa yeelay wax loo ordo maxaan ku idhaahdaaye runtii iyadaaba marka horeba yaxyax iyo waji adayg ay naga ahayd haddana inaanu wax walbaba aanu dhahno sida doctorku sheegayay anigu khayrkaan rabo